markii aan talo hayay tabar ma hayn hadda oo aan talo hayana tabar ma hayo waayo aragga dadku adduunyada waxa ay ku tilmaamaan beenaley oo way isbedel badan tahay mid bay bulaalisaa midna way dibrisaa mid bay cimaamadaa oo cal sare saadhaa midna ciiday madaxa u ruubtaa oo cagta hoosteeda gelisaa kubay awood siisaa ku kalena liidnimay ku lartaa ruux bay gallad hayneed la doonataa mid kalena gabiib cayrnimay taagtaa dad bay sadaniyo sareedo gobonnimo ku noolaysaa qaarna saxariir gumaysibay dusha ka saadhaa adduunyadana gadaheeda unbaa lagu halqabsaday waxaa ku adeegata awood sare ilaahiya oo qofka lagu imtixaamayo sidii uu ka yeelo wixii aqoon itaal iyo adduun ilaahay siiyo iyadoo la doonayo inuu ugu dhaqmo abbaarta aadminimadu leedahay ee aanu ugu antara dhaafin wax aan ku habboonayn dadnimadiisa amase dowdarriyo amar ku taaglayn u geysan dadka kale dadkuna kala dabeecad duwan oo darbay arrintaasi garaadkiisa degtaa ee dawgiisa garta gardarrana ka durka mid bayse beenalayda adduunyo kadisaa inta ladnaantu uga darto oo dabbalaayo shida hadhowna qoomamo ku dambeeya soomaaliduna xaaladahaas darsi waaye aragnimo bay ka qaadatay murti badanna way ka dejisay waxaana u daliila hawraartan murtideenna maanta ku tixan tahay tiraabteeduna tahay markii aan tabar hayay talo ma hayn hadda oo aan talo hayana tabar ma hayo laqbuhuna waa sidaan waagii aan lahaa awood aan wax ku tari karo waqtina aan u haystay taladii igu fiicnayd kasmadarriya kibir baan uga tegey markaan oo aan ogaadayna awood darreeyey oo waayuhu idabre waxbana ma tari karo dibna qaniinsi baan ku dambeeyey waxayna ku baxday aan taariikhda uga baal rogne sheeko aan aad u soo koobayno waxaa la wariyey inuu jiray nin Soomaaliyeed oo reer guuraa ahi ee dad iyo dunyaba ilaahay ugu roonaaday oo geeliisu xiriyo buuxiyey rag badanoo uu dhalayna mar wadahana qaadeen kibirna la hagoogteen maalintii dambe ayaa wiil uu dhalay nin islaameed gardarro ku dilay goortaasaa odagii loo yimid oo lagu yiri hebelow wax ka bixi magtii ninkii wiilkaagu dilay kolkaasuu diiday oo dagaal ka xigsaday ilayn waa nimay hadi wadaaye taas waxaa ka dambaysay in reerkiisii lagu soo qaaday duulaan daba dheeraaday oo wiilashiisii lagu laayay duunyadiisiina ku dhacantay isagii laftiisana dhaawac daran lagu dubaaqeeyey kolkaasaa dhiiggii oo ka da'aya lagu yiri war hebelow iska waran markaasuu yiri adduun ikhatal markii aan tabar hayay talo ma hayn hadda oo aan talo hayana tabar ma hayo dulucda hadalkiisa ka dilaaci kartana daahma saara oo waa inaan lagu dagmin wixii aan samaan looga aayi doonin dawgaaga la garto waqtiga aad leedahana laga faa'iidaysto imaqlahayow waa adiga maankaaye sowma moodid inay murtidaani hawada ugu dirayso darsi wadaniyeed dadyowga gobonnimo doonista ku daalay ee gumaystaha la soo dagaalamay gaar ahaanna waxay sarbeebteeda u daaqsingeelaynaysaa ummaddii madax bannaanideedii u soo bowd gashay ee dawgeedu yahay inay doorato siyaasaddii danaheeda daboolaysa aayaheeda dambena baraare u daadihinaysa iyo dowlad xibnaheedu ku caanbaxeen wadaniyad iyo daacad lahaan taariikhda dalkuna u daabacday iyadoo ka sii ood dheeraysanaysa gumaystihii oo daaqadda uga soo dhaca iyo dibu socod u dallaala ee danti xun xeeladaysta ummaddana dhalanteed u daleeya ee hadday talo iyo tabarba haysataaye ha ka sii tabaabushaysato qoomamada tiraahda shalay maanta ahaan lahayda markii aan tabar hayay talo ma hayn hadda oon talo hayana tabar ma hayo